subax wanaagsan saaxiibayaal halkan waa idaacadda kulmiye qodobada warkeena subaxna waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya oo bilowday in dhagxaanta lagu xiray qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho la qaado askar Soomaali ah iyo kuwa Liibiyaan ah oo xalay ku dagaalamay xero tababar oo ku taala dalka Turkiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si kulul uga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka xilli uu fashil ku eedeeyay hoggaanka dawladda taliska booliiska degmada Caabud Waaq oo shaaca ka qaaday inay qaati ka taagan yihiin waxyaabaha maanka dooriya oo kaga yimaada dawlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay in Soomaaliya ay ku soo qaaday dagaal diblomaasiyadeed oo qaawan iyo Trump oo isbitaalka uga soo baxay si uu soo salaamo taageerayaashiisa marka la subax wanaagsan waa Isniin taariikhduna waxay tilmaamaysaa 5 bisha 10aad ee Oktoobar 2020 Amaal Yuusuf Macallin ayaa warkan oo Axmed Maxamed Ibrahim soo saaray la diyaara aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim subax wanaagsan markale dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad dhageysateen oo dhameystiran dawladda Soomaaliya ayaa bilowday inay dhagxaanta ku jiraan qaybo ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ay qaado Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan dhagaxaanta ayaa laga qaaday wadooyinka waaweyn ee gala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kadib markii ay badatay cabashada dadka deegaanka dhagaxdan ayaa ka hor xirnaa dhammaan jidcadayaasha gala xaafadaha kala duwan ee degmada Wadajir kuwaas oo suurtagelin waayay in lagu isticmaalo wadooyinkaas gaadiidka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka ayaa keenay noo sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee noloshooda ragaadisay muddooyinkii u dambeeyay ay ahaayeen dhagaxaantaasi maadaama dadka xanuunsan iyo meydka wadooyin ay marsiyaan ay waayeen sidaasna ay kaliftay in Wadajir ay noqoto jasiirad gaar ah oo ka madax banaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir wadada kaliya ee degmada Wadajir gali jirtay lagana bixi jiray ayaa ahayd mid ka baxda isgooska Soobe ee tagta isgooska danwadaagaha ee degmadaas midaasna ay xirmi jirtay xilliyada roobka uu ka da'o magaalada Muqdisho maadaama ay biyo fariistaan xubno ka mid ah maamulka degmada Wadajir ayaa xaqiijiyay in dhagaxaantan laga qaaday wadooyinkii xirnaa ee degmadaas isla markaana shacabka ay u adeegsan karaan gaadiidkooda hase yeeshee waxaa loo diiday in maamulka uu warbaahinta kala hadlo arrintaas idaacadda kulmiye ayaa warbixin ka sameysay goor hore degmada Wadajir wadooyinkeeda oo kolkaasi xirnaa maadaama ay quus ka taagnaayeen dadka deegaanka ayna jirtay guryaha qaar oo dhagaxaanta lagu horxiray wadooyinka waaweyn jidcadayaasha qaar ee magaalada Muqdisho ayaa iyaguna weli ku xiran dhagaxaanta kuwaas oo la dalbaday in laga qaado ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu amray in degmada Wadajir wadooyinkeeda laga qaado dhagaxaanta ku xirnaa kadib markii uu la kulmay maalmo ka hor saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dawladda faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya isku dhac dhex maray ciidamada dawladda Turkiga ay u tababaraysay dawladaha Soomaaliya iyo Liibiya sida wararku sheegayaan askartan oo hal xero lagu tababarayay ayaa gacan qaad waxa uu ku dhex maray meeshii lagu tababarayay kadib markii ciidamada Liibiyaanka uu midkood toorey ku dhaawacay askari Soomaaliyeed oo halkaasi ku sugnaa isla markaana ay ka dhiidhiyeen ciidan kale oo tababarka kula jiray marka laga soo tago askartaasi mindida isku dhaawacday safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ayaa beenisay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in isu gacan qaadka halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen 25 ruux oo isugu jira Soomaali iyo Liibiyaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka xilli fashil uu ku eedeeyay hoggaanka dawladda Soomaaliya Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya warkan kadib markii dhawaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu soo saaray liis xildhibaan ah kuwaas oo ku sheegay inay ka shaqeynayaan doorashooyinka xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi ayaa arrimahaasi waxa ka hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan ayaa tilmaamay in dawladda looga baahan yahay in doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi dadkoodii ay u dhaafto isla markaana ay dhageysato hadalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare waxaan leenahay hala dhageysto dadka waqooyiga ka socdaahay codkooda hala dhageysto rabitaankooda hala tixgeliyo sida ay ayagu u arkaan duruufahooda gaarka ilaan xaalad gaar oo special ah waaye waxa lagu maamulaya arintooda sida ay u arkaan
duruufahooda gaarka iyo rabitaankooda gaarka iyo muxuu ahaay in aad iyo aad loo tixgeliyo markay taladooda la weydiiyo ayagu sida ay rabaan iyo sida ay jeclaan lahayn inay wax u dhacaan iyo sida ayaga is yaqaana ay adaan kadib dawladdu haddii madaxweynuhu markaas uu sharciyeynayo waa gooni laakiin talada iyo go'aan gaarista xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ama waqooyiga Soomaaliya sidee loo dooranayaa waxay u taalaan weli dadkeeda leana dawlad goboleedyadu dadka dawlad goboleedyada degan ayaga go'aan u gaaray ayaga loo doortay ayaga muxuu ummadda ay doorto mas'uul ah maadaama xaaladda hadda waqooyi ay sida ay ka duwan tahay dad mas'uuliyiin ah jooga waqooyi oo la doortay ayaga laftooda kuwa la doortay ee jooga in la tixgeliyo gudoomiyaha aqalka sare dadka waqooyi ka soo jeeday la doortay hadda ugu darajo sareeya marka waana oday Soomaaliyeed oo waaya aragna wax badan u ah intii hadda doorashooyinka dadbanaay oo noocan oo kala dalka ka soo dhacay waaya arag u ah ka sii horna waaya arag u ah aqalkii masalaya federalismka masaliyana maanta madax ka ah in la dhageysto marka isagaas oo tala hoos la yeesho oo ra'yi la geliyo sida hadda ka muuqato warqadda uu soo saarayna isaguna uu la tashay dad badan oo waqooyiga tala badan oo siiyay marka meelahaas ayaa xalka wanaagsan waxa quruxda badan ay jiraan madaxweyne xasan oo wax laga weydiiyay sida uu u arko lacagaha musharaxiinta xildhibaanada labada aqal ee la kordhiyay isla markaana laga dhigay $10,000 oo golaha shacabka ah iyo aqalka sare oo $20,000 ah ayaa ku jawaabay sida tan marka tiraahdo murashax in la doorto rabaa 20,000 oo diiwaan gelin oo bixinaya macnaheedu waxa waa nin kasta oo Soomaali ah oo muwaadin oo $20,000 aan haysanin yani ma sharaxi karo waxna ma noqon karo waa gabar kasta iyo wiil kasta oo Soomaali oo 10,000 aan heli karin xildhibaannimo usoo soo sharaxi karo reerkiisa dhexdiisa iska ma soo sharaxi karo ma Soomaali weyn iska ma soo sharaxi karo marka arin sax ma aha aniga hadda wax kalifayna ma garanayo ayada dawladda laga rabaa inay dadku u sharaxdo waxa muwaadiniinta xuquuqda basic ah ay conditions looga xirayo ninkan lacag haysan siyaasadda kama qayb gali karo u dhigantaa marka la macneeyo marka xigmadda ay leedahay waa fiicnaan leed in dawladdu ay ka hadasho baragleena sanadkii hore 20,000 oo ay madaxweynaha waa hadda senatarka 20,000 marka madaxweynuhuna murashaxiisa 20,000 ma noqon doono waa la qiyaasaya laga soo bilaabay ilaa kan dad baa uga haraya lacagta registrationka ay kari waayeen madaxweynimadan dhow laga yaabaa dad inay uga haraan inay fiiga la keeni doona inay kari waayaan geesta kale xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyay hoggaanka dawladda 4 sano ee dalka ay maamulayeen aysan gaarsiinin horumar siyaasadeed balse uu shaaciyay in dalka ay geliyeen dib u dhac baahsan 4 sano ku dhawaadka hadda xilliga sii dhamaanayo dhan bishii Juulaay ee sanadkaana ugu horeysay dawladdu inay si public ah doorashada waa dhacay ay tiraa doorasho la qaban doona saan ay tiraa hal qof wax ay tiraado laakiin waxay ahayday bishii Juulaay 2017 ay ahayd in la yiraahdo doorasho loo dhaqaaqaya noocaas laga shaqeynaa waa saas ayadoo waliba heshiisyo hor dhaca nimanka hadda dawlad goboleedyada iyo ka tirsan ay madaxda dawladda ay gaareen oo baydhabo lagu shiray oo la yiri proportional representation wax la yiraahdo la qaadana doorashada qaab yar wax yar laga sheegay haddana shaqo lama qaban marka in maanta meeshii 2016 aan joogno oo ku noqono waxa kalifay shaqo la qaban waaye horumar siyaasadeed dalku inaanu gaarin oo siyaasadii localka maxalliga ahayd dadka in la isku soo celiyo institutionka siyaasadda in la xoojiyo dimuqraadiyadda in hore loo sii qaado in maxaan ku yiraahdaayay la sii kaaba ahayd macnaheedu dawladdu waxay maanta saxiixday oo timber ay ku dhufatay 4 sano oo sii dhamaanaysa wax horumar oo siyaasadeed oo dalka laga sameeyay ma jiraan bal dib u dhac meelaha qaarkood laakiin dib u dhacaaba ka jiraba marka 2016 doorashadii ahayd in sideedii loogu noqdo intaasaa keentay hadalladan ayuu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kol uu wareysi siiyay TV-ga Somali Cable taliska booliiska degmada Caabud Waaq ayaa shaaca ka qaaday inay khaati ka taagan yihiin waxyaabaha maanka dooriyo oo kaga yimaada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya warkan taliyaha booliiska degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud Cabdisalaam Sheekh Yuusuf oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in degmada Caabud Waaq maalmihii dambe ay ku soo badanayeen isticmaalka draagiska noocyadiisa kala duwan taliyaha ayaa tilmaamay in draagiskan uu Caabud Waaq ka soo galo dhulka dawlad deegaanka Soomaalida isagoon hadalkiisa ku daray in markii ay ku soo bateen keenista waxyaabaha ammaanka dooriya degmada Caabud Waaq ay sababtay in dhalinyarada isticmaasha ay gudaha magaalada ka sameeyaan dilal iyo sidoo kale dhac iyo falalka kale ee amniga lidka ku ah
cabdisalaan sheekh yuusuf taliyaha booliska degmada Cabudwaaq ayaa dhinaca kala xusay in howlgallo ay ka sameeyeen gudaha degmada Cabudwaaq ay ku soo qabteen gawaari fara badan kuwa oo ku raran waxyaabaha ammaanka dooriya waxa uuna ballan qaaday in maalmaha soo socda ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan daraagiskaas iyo dadkii lagu qabtay waxaa xusid mudan in isticmaalka waxyaabaha ammaanka dooriya muddooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayeen deegaano iyo sidoo kale magaalooyin ka tirsan gobolka Galgaduud kuwaas oo la sheegay in laga keeno dhulka dowlad deegaanka Soomaalida. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku soo qaaday dagaal diblomaasiyadeed oo qaawan. Maslax Abuukar Xaaji ayaa faahfaahinaya warkan. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka faa'iideysanayso aqoonsiga ay caalamka ka haysato isla markaana ay ku soo qaaday Somaliland dagaal diblomaasiyadeed oo qaawan sida uu hadalka u dhigay. waxa uu intaasi ku daray in Somaliland ay diyaar u tahay in tijaabo lagu sameeyo qarannimadeeda isagoona tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya aan haatan la barbardhigi karin Somaliland. marnaba Somaliland inkastoo ay leedahay dhaqaale buuran yeeli mayso waana ka feejigantahay in waad baahan tahay loo baahda curo oo dhaqaale loogu soo gabanayo waxyeelada qaranka Somaliland ay Somaliland basho marna aqbali maayo xisbiga kulmiye inta uu qabto Somaliland waxay aaminsan tahay mabda'a nabadgelyada dalalka dariska ah iyo dalalka caalamka sida horumar Somaliland waxay si cad ugu sheegaysaa beesha caalamka oo dhan jibcada qurumaha ka dhaxaysa ururka Afrika urur goboleedka IGAD midowga Yurub jaamacadda Carabta dalada dowladaha Islaamka cid kasta oo arrinta Soomaaliya danaysa waxaan si cad u sheegaynaa in aqoonsiga la siiyay qayb ka mid ah dalkii burburay ee loo oran jiray Somali Republic qayb ka mid ah aqoonsiga ay siiyeen in uu noqday hub lagula dagaalamo xasiloonida horumarka nabadda iyo qaranka Somaliland waxaan si cid walba u sheegaynaa si cad Somaliland in la soo tijaabiyo qarannimadeeda oo ay cid walba oo tan maanta xamar joogta ka xoog weyn isku dayday ama ciidan badan soo haystay laakiin qaranka Somaliland uu yahay birlab aan qarannimadooda laga taaban karin. wadahadallo dhex maray Soomaaliya iyo Somaliland ayaana noqon kuwa miro dhala isla markaana waxaa la doonayaa in mar kale la wada hadalsiiyo si loo dhameeyo tabashooyinka ay qabaan Somaliland balse tani markii uu kursiga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Somaliland ayaa si weyn ugu dhaliilaysay in uu wax badan ka bedelay habdhaqankii dawladihii hore oo ahaa in Somaliland ixtiraam gaar ah loo muujiyo inta wada hadallada ay socdaan. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muddo kooban ka maqnaa isbitaalka si uu u soo salaamo taageerayaashiisa oo ku sugnaa banaanka isbitaalka lagu daweynayay. madaxweynaha ayaa ku jiray gaari madow waxaana la arkayay isagoo afka xiran isla markaana taageerayaasha uga gacan haadinaya gaariga uu ku jiray. madaxweynaha Mareykanka ayaa marsii horeysay bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu si kadisa ula kulmi doono taageerayaashiisa. Mr. Trump ayaa lagu dhaliilaa sida uu u maareeyay cudurka safmarka ah ee corona sidoo kalena wuxuu sheegay inuu wax badan ka bartay coronavirus.